السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال ملك السو دنيا نجلس عطان كسر هذا برنامج كترتنا قناتك بشر رمضان الدكسية نور الدين سكوليس وترتنكي قيبتي كوبية طبناد ترتنا قناتك الدكسية نور الدين سكوليس وآلا بكرة عطان تلفزيون كأريال تي في وترتن كان كل ما يو ترتنكي ودحمر دونا فصلنا 8B بقولي كتن كا وحبلاه يفصل كا 8A أو دلودا أو رجعة برامج كا أيان فرندونا كديبنا إنتانا برامج كفرن وحنكسر دوين يا وجهرين آيات كقرآن كاي أردقين وآخرين لها ساسا نقصي سعون النمر كترتن كاي نوبلا مية اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلو فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. آيات كقرآن كديب وحين بلابنا إن ترتن كلا بأرضية يا سوكا عيا كديب نوح كلا دورنا يان نصيب كوجوه الرئيس عاش اللي ويدينا يو معلمين تنوريجين يا ترتن كسيدي أسو السعودي إن يو إن هذا هالكم مرة يو أو باقرون يرنسين دونا. صباح ونكسن لما أرتدي لبضي كلاس ترتمية معلمين تا معمولك يو إن واحد الصحافة والد السلام يا مرك لبعض maanta oo ay taariikhdu tahay shantii bishii lixaad waxaynu halka ka fadhinaa kulankeenii 11aad ama tartankeenii 11aad tartanka aqoon kororsiga ee dugsiyada hoose dhexe ee Nuuridiin ee lagu talagalay bisha barakeysan Ramadaan tartankaasi oo ka koobnaa fasalada 8aad iyo 7aad maanta kulankan wuxuu inoogu calaamadsan yahay waa tartankii ugu horeeyay ay isku yimaadaan wiilal iyo gabdho sidoo kale klaasyada 8aad waa final koogii halka klaasya maanta soo baxa ayaa sii fadhiisan doona oo sigi doona fasalada 7aadka ka soo baxa kulankan wuxuu soo socday muddo 10 maalmood oo hadda aynu ka soo gudubnay kulankii koowaad wuxuu soo dhex maray klaasyada 8B xawaadle iyo 8D dalodo oo kala ahaa morning iyo afternoon kulanka koowaad waxaa soo guuleystay klaaska 8B kulankii labaad wuxuu soo dhex maray klaasyada 8A oo 150 ahaa oo gelinka hore ahaa iyo 8B oo isaguna 150 oo gelin hore ah waxaana soo guuleystay klaaska 8B la yiraahdo oo halkan dhinacayga madax fadhiya way tartankii saddexaad wuxuu ahaa waxa wada tartamay klaasyada 8B dalodo oo gelinka hore ah iyo 8C dalodo oo iyaguna gelinka hore ah okay waxaana guuleystay klaaska la yiraahdo 8C way maalintii afraad waxa tartamay labada klaas ee 8A oo xawaadla ah oo hablaha iyo 8C oo iyaguna 150 ahaa oo hablaha oo gelin hore ah waxaana guuleystay klaaska la yiraahdo 8A oo xawaadle ahaa gelin dambe way maalintii shanaad ee tartanka waxa wada tartamay klaasyada 8B xawaadle afternoon iyo 8A dalodo morning waxaana soo baxay klaaska la yiraahdo 8A oo halkan dhinacayga midig fadhiya haatan way
maalintii lixaad waxaa uu tartamay kilaasyada 7B xawaadle afternoon iyo 7A daloodho afternoon waxaana guuleystay kilaaska la yidhaahdo 7A oo ka tirsan iskuulka daloodho qaybtiisa gelinka dambe. way maalintii toddobaad ee tartanka waxaa tartamay kilaasyada 8B 150 oo halkan fadhiya ayaa markoogii labaad tartamay waxaana la tartameen kilaaska 8A xawaadle afternoon iyagaana guuleystay oo iminka dhinacayga fadhiya. way maalintii sideedaad tartanka waxaa tartamay kilaaska 8A daloodho morning iyo 8C daloodho morning waxaa iyaguna markoogii labaad guuleystay kilaaska la yidhahdo 8A oo ka tirsan iskuulka daloodho gelinka hore oo haatan dhinacaygan midig fadhiya. way maalintii sagaalaad ee tartanka oo shalay ahayd waxaa tartamay kilaaska 7A daloodho morning okay iyo 7B daloodho morning waxaana guuleystay kilaaska 7A. way maalintii tobnaad ama tartankii tobnaad labada tartan ugu dambeeyay shalay bay wada dhaceen. tartankii tobnaad wuxuu ahaa 7A daloodho iyo 7C daloodho iyagu afternoon iyo morning ka lahaa. way waxaana guuleystay kilaaska 7A oo ka tirsan qaybta gelinka dambe ee daloodho. sidaad warbixinta ku arkayseen labadan kilaas labada dhinac kala fadhiya waa laba kilaas oo 8 ah wiilal iyo gabdho kale ah. labadooduba midkoodba laba jeer hore ayuu soo badiyey. okay haddaan si kale u dhigo mid kastaaba wuxuu soo reebay laba kilaas oo kale oo 8 ayuu soo reebay. maantana iyagaynu tartankooda ugu fadhinaa. tartankan waa final shuruucdana aad baa loo ilaalin doonaa. ardaydana daawadayaasha iyo tartamayaasha iyo ardayga gaarka ee su-aasha ka jawaabayaba waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa ka guddi ahaan inay anshaxa iyo nidaamka iyo wixii aan u akrinay ilaaliyaan oo shuruucda way hayeen maadaama tartano hore soo galeen. aadna waa loo sii fiirinayaa maanta saaha loola socdo shanqadhana ha la dhowro. tartankaas toos hadda inoogu furmi doona. maadooyinkuna sida ay noogu soo kala horreyn jireen ayay noogu soo kala horreyn doonaan. qolada su-aasha ku horeyso 8Ana ardayga ugu horeeya sayniska ugu jawaabayaa inuu soo kaco. way waxaan toos u bilaabaynaa akhriska su-aalaha. su-aasha waan ku akhriyayaa hal mar ayaan akhriyayaa si fiican u dhegeyso. way su-aashani waxay ina odhanaysaa conservation of water is extremely important. conservation of water is extremely important. which of the following is not an importance of water? choice A, it is the most abundant compound in living organisms. choice B, it increases the inside temperature of living organisms. choice C, the power of water is used to produce the hydroelectricity. choice D, it is a solvent for all chemical reactions inside living organisms. choice ka saxda un baad ku dhawaaqi doontaa hadii la hayra. tahay waqtigan uu ku bilaabmay magacaagaad ku bilaabaysaa iyo magaca fasalkaaga. بسم الله الرحمن الرحيم. waqtigii وبيدة B ayaad ku adkaysanaysaa. وديدة ما waa D baa tidhi ugu dambayn. ها ugu dambayn waa D waa tahay D baanu ku eegi doonaa. waa tahay su-aashaasi sax ma aha oo saasay qalad ku tahay. Bida ayaa sax ahayd. waa tahay markan waxaanu yeedhaynaa kilaaskan kale 8B iyaguna su-aashooda koobaad inay soo kacaan. way su-aasha labaad sayniska waxayna odhanaysaa which of the following is not an advantage of deep litter system of poultry rearing? which of the following is not an advantage of deep litter system of poultry rearing? choice A, it's difficult to keep records of individual birds. choice B, many birds can be reared in small space. choice C, birds are not exposed to parasites and diseases. choice D, poultry manure is made available. waqtigiina oo ku bilaabma.
Bas. بسم الله مقعي وموهب أحمد محمد كلاس عطي سكول نوردين قارهان قيبت بقولي كتنك كان سياح جلاس كأير بيس وعش هذا سكول وبي أو many birds can be read in a small space. B or how many periods can be read in a small space. وسؤال شاسن كويعنا وقت تقولنا وكوس عنايا. وتاي سؤال شاس بعد كوكل صون تيجي جوابته إني صح تاي. بان ku eegna Soomaa oo waqtigii buuna uu kugu socdaa u dhacay doona may dida ma jirto waa A P and C and D marka uu ad waxaan codsanaynaa ardayda waqtigeena ilaashadaan waqtigaagu markuu dhamaado su'aashu saas ay kaaga dhamaanaysaa waqtigaasan baad haysataa kaliya wax lagu darayaa ma jiro atay ardayda tartamayaashaana mar labada nagu celiyo waxaan ka codsanaa gacmaha inay laabaan wiilashii gabdhaha labadaba inay gacmahoogu mutarabac ku jiraan gacmahoogu inay mutarabac ku jiraan gacmaha furanna waanu eegan doonaa insha allah waay su-aasha saddexaad ee tartanka ee sayniska ah waxayna odhanaysaa The experiment says shown flows states what happens to the water fiber from the kettle when it makes contact with the cold surface of the plate. Choice A, it condenses and turns into fiber again. Choice B, it evaporates and turns into fiber again. Choice C, it condenses and turns into water again. Choice D, it condenses and turns into salt again. Hey, hal mar buu codsanaa nagu celiya ardaygaas waqtiga in yar haloo geetaan aan u akhriyo tigiina uu ku bilaabmay hadda waqtiga waxa laga bilaabi doonaa markuu isagu la wareego wuxuu dalbaday in lagu celiyo markaa hal yar hakiya waqtiga okay intaan akhriyo anigu the experiment said shown below states what happens to the water fiber from the kettle when it makes contact with the cold surface of the plate diagramka dhinaca ku yaalla waad fiirinaysaa oo su-aasha la xidhiidho Choice A, it condenses and turns into fiber again. Choice B, it evaporates and turns into fiber again. Choice C, it condenses and turns into water again. Choice D, it condenses and turns into solid again. waqtigu hadda wuu ku bilaabmaya waatay waqtigiina uu ku socdaa waa Z ugu dambeyn C baad ku adkaysanaysaa ama aad ku kalsoon tahay in jawaabta saxda ay tahay okay C ayaynu eegin doonaa sax weeye jawaabtaasi su-aasha ugu dambeysa waxaas kale hablaha su-aasha waxayna odhanaysaa which of the following statements is not advantage of cover crops for the soil which of the following statements is not advantage of cover crops for the soil choice A, they enrich the soil with useful nutrients and act as a fertilizer choice B, they also reduce water evaporation from soil and prevent soil erosion. Choice C, they prevent the strong winds that may blow off the upper fertile layer of soil. Choice D, they help to retain water in the soil. Bismillah. magacayga Kabtan Mooli Maxamuud Axmed oo ka socda iskuulada Nuurdin 150 gaar ahaan RB hadaa su'aashaas ku daro C haye wuu ku socdaa waqtigu tijaab
ya c baan ku eegnaa soo maa c ayaa jawaabtaad ku kalsoon tahay sax wey waatay waxaa iminkana inoo bilaabmaysaa maadada englishka iyo macalin Sakariya way su-aasha koowaad waxay ku oranaysaa being a generous lady she always finds favor with people choose the alternative that gives the opposite of the words inside the brackets being a generous lady she always finds favor with people choose the alternative that gives the opposite of the words inside the brackets. Choice A, mean often. Choice B, miser, never. Choice C, mean never. Choice D, miser ever. waqtigiina oo ku bilaabmay بسم الله magacaygu waa maxamed kiise xasan kana socda galaaska air morning dowladda tan su'aasha isku dayo waxay noqonaysaa c waa c waqti baad u haysataa wanaba waxaad hubtaa inay c tahay min never u eg oo saxbaysaa jawaabta su'aashuna ku tahay saxba ardaygaasi leeyahay way waa su-aashii labaad ee maadada Englishka that person is very knowledgeable choose the alternative that gives the opposite of the word knowledgeable that person is very knowledgeable choose the alternative that gives the opposite of the word knowledgeable A foolish B ignorant C learned D wise waqtiga ayaa ku bilaabmaya bismillaah anigu magacaygu yahay Sucaad Maxamed Jaama oo ka socda iskuulada Nuuradin gaar ahaan 150ka sibaan galaaska 8B tan su'aasha isku day jawaabteedu waa B waqti baad ku haray hadii aad optionada kale B baan ku eegnaa kolka B baan ku eegnaa sama okay ugu dambayn B ignorant sax weeye jawaabtaasi way waa su-aasha saddexaad ee maadada Englishka iyo fasalka 8A the Lord morning not only does he lie but also steals this sentence means the same as not only does he lie but also steals this sentence means the same as A he is either a liar or a thief B he is a liar and a thief C he is a liar because he steals D he is neither a liar nor a thief waqtigiina uu ku bilaabmaya بسم الله magacaygu waa maxaa abdi yaasin waxaan ka socdaa galaaska 8A dalooro adan su'aasha isku dayo waa B okay waa option-kaaga aad ku kalsoon tahay inuu B yahay jawaabta saxda ahi mise waa waqti baad haysataa B-dan ku eegaynaa is a liar and thank you aad u mahadsan yahay way iminkana waa su-aashii ugu dambeysay ee maadada Englishka way
su-aashaas waxay ka odhanaysaa neither Mohammed nor Ahmed showed up for the interview. Select from the choices given the sentence that means the same as the given one. Neither Mohammed nor Ahmed showed up for the interview. Select from the choices given the sentence that means the same as the given one. Choice A, both of them showed up for the interview. B, either of them showed up for the interview. C, one of them showed up for the interview. D, none of them showed up for the interview. waqtigiina oo ku bilaabmay. بسم الله أنا مقعي أحلام يونس عن نور كسعودي سكول كنور الدين قرام بقولي كنت كلاس كايد بي مورنينج جوابت السؤال هذا سكول دي وادي واتهي دي باد ku kalsoon tahay in jawaabta saxda ah ay tahay mise waxaad ku kala ku eegaysaa ku kalsoonay دي baad ku kalsoon tahay Soomaa okay دي baanu ku eegnaa Soomaa marka ugu dambeyn waaye دي baanu eegnaa sax weeye jawaabtuna maadada af Soomaaliga ayaa inoo bilaabmaysa iyo macallin Abdirasaaq بسم الله الرحمن الرحيم سؤال كوباد مادة الصومالية إن إريجا كينه ووضر طلب مجعوية لهانشو إريجا كينه إريجا سوا وضر طلب مجعوية لهانشو وضرتي سردقنا وحا أي نقنيسا با تايدا تا تينه تا تودا ها تينه waqtigiina oo ku bilaabmay atay بسم الله أنا مقعد عبد الخالق جامع علي كسعودة جلاسكا أيد مورنين طلادو سؤال مع عبد السقويتي جوابت هذا تانس قطيو وتادا تأويه وقت ما يستيد تأوين ويجينا كلها صحويه جوابت سؤال شاسنا سؤال شلبات مادة الصومالية كرسيga xaggan dhig kursiga xaggan dhig nooca falkaabka hoosta ka xariiqan ee weedhan ku jira waa nooca falkaabka hoosta laga xariiqay ee weedhan ku jira waa ba falkaab masaafo ta falkaab jiho ja falkaab meeleed ha falkaab waqti waqtigiina oo ku bilaabmay بسم الله مقعي هدى المولود عبدي كسر كور قادتكاغا بسم الله مقعي هدى المولود عبدي كسر عتيس والكبقلة كتسكا كارهان جلاسكا اتش بي دان ساشا اسكو دي وجهدا جوابتو وحرف كيه شاء شاء بعد دورتي كل قد شاء بنكو يجنا سما اوكي شاء بنو يجنا إن يصح تاي إن غلط تاي وغلط ساج بسم الله الرحمن الرحيم سؤال صدحادي مادة الصومالية شر قرميرا هدي الله كعيو قبيو رير آده جمالنا حي كورها هدي قود كاللغا سارو وقيلين استاوضا هالكي قرنقر لو چوغي قول ايقو بنانا والي قراولا آنيده
gunadu ka soo toocin jiray goconayaa mooye adigoo fiirsanaya meerisyadaasi hal abuurku qodobka uu meerisyadan saaxiibkii ku ammaanay waa ba fardafuul ta farsamo yaqaan ja dagaalyahan xa ciyaar yaqaan waqtigiina wuu ku bilaabmay waqtiga shirgirmidha haddii loo kiciyo gob iyo reer gamaan naaxay kooraha haddii guudka laga saaro waa gelin istaawada halkii garangar loo joogay golay igu bannaanaa walee garab la-aaneede gunadu ka soo toocin jiray goconayaa mooye hal abuurku qodobka uu meerisadan saaxiibkii ugu baroorduuqay uu ku ammaanay waa fardafuul farsamo yaqaan dagaalyahan ciyaar yaqaan Time is going on. Bismillah, magacaygu waa Aadan Cabdinuur Diriye, galaaskayguna waa AIDA Taloodho after morning. Haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo, ja-day noqonayso dagaalyahan. Ja waa dagaalyahan ayaa tidhi waa xarafka ja oo aan la noqon doonin. Okay, waxaan ku eegin doonaa jawaabtaasi inay sax tahay iyo in kale waa qalad ee jawaabtu bacdaysa. su-aasha afraad ee maadada Soomaaliga ugu dambaysa cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalayay garaad faaraxdhay iyo karuur kale macaanaaye ereyga dhuurtu waa kugu celiyo cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalayay garaad faaraxdhay iyo karuur kale macaanaaye dhuurtu waa ba dagaal ta geed ja nin magacii ha buur waqtigiina wuu ku bilaabmay. bismillah aniga magacayga Isra Mulid Cabdi ka socotay sulka boqolkiiba ka saka gaar ahaan galaaska HB saara jawaabta tan isku day waa ta oo geeda codkaaga kor u qaad waa ta'da waqti baad haysataa ta'da ayaad ku kalsoontahay inay sax jawaabta saxda ay tahay ta'dan ku eeginaa markaas waa sax jawaabtaasi watay weli daawadayaal barnaamijka kadiska iyo su'aalaha ee dugsiga Nuuruddin ee telefishinka Ariel ayaad nagala socotaan iminkana maadada cilmiga bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale iyo maadada socialka su'aasha koobaad the headquarters of the World Bank is located in the headquarters of the World Bank is located in choice A, Geneva, Switzerland. Choice B, Washington, D.C., USA. Choice C, Paris, in France. Choice D, Rome, Italy. waqtiguna uu ku bilaabmay. bismillah magacaygu waa Xasan Cabdiraxmaan Iid ka socda galaaska AIDA morning su-aasha haddaan isku dayo waxay noqonaysaa bida oo ah Washington DC USA B ayaad jawaabta u dooratay inay tahay saxda ay tahay waqtina waad haysataa weli meelaan ku kalsoonahay tijaabi waxaad ku kalsoon tahay B oo aanu ku eegnaa si fiican sax weeye jawaabtuna sax buu leeyahay saaxiibkeen su-aasha labaad ee maadada socialka the number of non-permanent members of the UN Security Council is the number of non-permanent members of the UN Security Council is choice A 5 members choice B 10 members
Choice C, 12 members. Choice D, 14 members. anigu magacaygu yahay Cabdi Xakiin Ciise hadan ka socdo galaaska RB hadan su'aashaas ku dayo waa eeda oo 5 rid waa yahay tee baanu ku eegnaa eeda eeda waqtiguna imukun buu ku bilaabmay eeda ayaad ku kalsoon tahay inay jawaabta saxda ay tahay eedan ku kalsoonahay waa tahay eedan ku eegnaa ugu dambayn waa qalad jawaabtaasi وتاي ولي داوديال waxaad la socotaan barnaamijka su'aalaha ama tartan aqooneedka telefishinka Ariel ee dugsiyada Nuruddin Schools waxaan bilaabanaynaa qaybta labaad ee tartankeenan fasalada ITB iyo 8A بسم الله الرحمن الرحيم سؤال صدحات مادة العلم الشدة which people were founded the ancient Mali Empire, the ancient empire of Mali. Which people were founded the ancient empire of Mali? Choice A, the Sarko fishermen. Choice B, the Soninka people. Choice C, the Tuaregs. Choice D, the Moroccans. waqtigiina wuu ku bilaabmay بسم الله أنا معي يحيى جيلاني محمد كان صعد كلاسك 8 دلودو جينينغ هوري هذا السؤال اللي جاوبته اسكودايو وإيه سوركو فيشرمان إيه ويه the سوركو فيشرمان مساسات كوكالسون تاي إن أي تاي جوابته الصحة وتاي وأنكو يجنا قدام بنتي جوابته سنو يجنا إيه إذا والسحوية جوابتنا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شوطة ميسا مادة social studies and who was the nationalist leader of Ghana? Who was the nationalist leader of Ghana? Choice A, Nnamdi Azikiwe. Choice B, Jomo Kenyatta. Choice C, Peter Abrahamis. Choice D, Kwame Nkrumah. أتاي وقتينا وكو بلابمي بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعدي هدى مولي عبدي كسعتي سكولك بقليك تكا مقعاقا عدكا كوري رقات هدى مولي عبدي كسعتي واتاي سكولك بقليك تكا كارهان جلاس كعيد هذا سؤال جواب تدي سكوت أيوه ودي كوامة نكرومة ودي جوابتها صحدا هي يا تري ها واتاي واتكو كالسونتا إني ساعتاي وقتي كوبان بعد هيستا يا
ku kalsoon waxaad ku kalsoon tahay inay D tahay jawaabta saxda ah sida awadeed waanu ku eegaynaa D ayaa sax ah waa sax jawaabta si waa tahay maadada xisaabta ayaa haddana inoo bilaabmaysa waxaa ardayga ugu horeeya ee ka socda 8A tartan horaad gashan bay la tahay laakiin maadadani waqtigu ka yara dheer yahay halkii minute ee hore 2 minute baad haysataa iyo waraaqdeed ku xisaabsan lahayd way su-aasha koobaad weeyaan waxayna odhanaysaa when 10 meter per second is changed okay to kilometer per hour is equal to 36 kilometer per hour 3.6 kilometer per hour 10 kilometer per hour okay 360 kilometer per hour oo ku bilaabmay waqtigii طيب بسم الله magacay waa Mustafa Abdiraxmaan Abshir waxaan ka socdaa fasalka 8A Torodo morning su'aasha la weydiiyay jawaabteedu waxay noqonaysaa A waa A jawaabta su'aashaasi miyadan ku eegnaa ugu dambeyntii waa tahay waxa la eegnaa A inay tahay jawaabta saxda ah sax weeye jawaabta sax way waxaan sugaynaa ardayga 8B ka socda way su-aasha labaad weeyaan su-aasha waxay odhanaysaa what is the area of the following figure okay choice A 14 meter square choice B 40 meter cubic choice C 40 meter square choice D 56 meter square waqtigiina uu ku bilaabmay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأمال عبد القادر محمود oo ka socda galaaska RB 150 ka su'aasha hadan isku dayo waa bida waa bida ayaa tiri jawaabta su'aashaasi bidun baan ku eegnaa ma ku kalsoon tahay jawaabtaasi inay tii saxda ay tahay basida sida okay sidan ugu dambeyntii ku eegnaa mise bida sida ha waa tahay sida ayaynu eegi doonaa waa sax jawaabtaasi sax bay leedahay intaas way ardayga labaad ee ka socda 8A su-aashana waa tan si fiican dhegeyso the ratio of the heights of Ali and Noor is 6/7 okay if the height of Noor is 175 centimeter what is Ali's height waqtigilo uu ku bilaabmay choiceska choice A waxa weeyaan 175 centimeter choice B 185 centimeter choice C 9 centimeter choice D 150 centimeter waqtigii
waqtiga بسم الله أنا مقعي ويا مختار محمد يوسف أنا سعداء سكوك نور الدين طلعوا قلنا هورك قارحان فصل كأيده كقارسي وقتك سواش هذا صدق وديدة وديدة إنه يجي دونا مركا وقت ما يستو وصح جواب تاسنا سؤال قدام بس حسابته وحاجة جوابية 8B سؤال وطن in a class okay the number of girls is twice the number of boys if 60 students are in the class what is the number of the boys A 60 students B 30 students C 20 students D 15 students. واتاي وقتينا وكو بلابمي كسؤال معنا واتاي ويرجوج وقتك وقتك ويرهكي in a class okay the number of girls is twice the number of boys if 60 students are in the class what is the number of the boys choice A 60 choice B 30 choice C 20 choice D 15 واتاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحلام عثمان كسعتا سكول كبقولي كنت كارهان 8B هذا سؤال جاوبت هذا سكوتيو وسيدة أو 20 students وسيدة أو 20 students واتاي إن وجوابت هذا أتكو كلسون تايني تصحدا تاي ماي إن بيدا وبيدا يا تري أو 30 students سي ها بي يزي تبا دورته قدامبينتي سي با دورتي سي بانو كو اغنا marka ugu dambayn inay jawaabta saxda ay tahay waayahay سي baynu eeginaa waa sax jawaabtaasi weli daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka tartan aqooneedka ee dugsiyada Nuuruddin Schools oo kulankan ay ku tartamayaan klaasyada 8A iyo 8B waxaan u gudbaynaa maadada tarbiya al-islaamiya iyo macallin Mustafa Hussein Jaamac بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده halkan waxaan uga bilaabmayaa su'aalihii maadada tarbiya al-islaamiya su'aasha koowaad ee ka mid ah su'aalaha maadada tarbiya islaamiya al-kalaam waxa sheegaysaa afwan al-kalaam fi al-macaasi والتحدث عنها بما يروجها بين الناس يسمى اختيار كوباد انتهاك الحرمات اختيار كلباد الخوض في الباطل اختيار كصدحات ذكر الله اختيار كأفراد الحرب oo ku bilaabaya
بسم الله أنا مقعيق يا محمد فرحان كان سعودة إسكولة نور الدين جارهان قيبت دلوردو فصل كيقولنا يا هي أيره هدان سؤاشا مع المستفي وديس كدايو waxay noqonaysaa bida الخوض في الباطل وبي الخوض في الباطل صح mise qalad inaad ku kalsoon tahay jawaabtaasi inay jawaabtii saxda ay tahay waa sax waana ku kalsoonay aad iyo aad hay ii tijaabi marka waan ku tijaabinaynaa bi sax weeye jawaabtaasi sax buu leeyahay saaxiibkan سؤال شلوات بنو قد بينا كمدة سؤالها مادة تربية إسلامية سؤال شلوات وحشيقسا المقصود بالحلف الكذب هو اختيار كوباد يمين على أمر مستقبل كذبا اختيار كلبات يمين على أمر مضى كذبا اختيار كصدحات يمين على أمر حاضر كذبا اختيار كوطنبيا يمين على أمر صدق waqtigiina uu ku bilaabmay بسم الله مقعيق وصفاء عبد الرزاق كان صعدت كلاسك إيربي قارهان بقولي كنت كده ساشا اسكت وبي وبي باتري جوابته بي وبي ayaad ku kalsoontahay inay jawaabta saxda tahay waqtina wad haysataa ha time baad haysataa aad uga fikirto inay tii saxda ahay tahay in kale waxaad ku kalsoon tahay inaan b ku eegno b baad u eegi doontaa sax weeye jawaabtaasi سؤال صدحات كمدة سؤالها مادة تربية إسلامية سؤال صدحات وحينو شيء سمي الحلف بالكذبا يمينا غموسا اختيار كوباد لأنه لا يغمس صاحبه في النار اختيار كلوات لأنه يغمس صاحبه في النار اختيار كصدحات لأنه يغمس صاحبه في الجنة اختيار كوطن بيا أفراد كل ما ذكر صحيح waqtigiina wuu ku bilaabmay بسم الله magacaygu waa Subeer kana socda galaaska 8A gaar ahaan dalodho su'aasha jawaabteeda baan isku dayay waa bida ha waqti baad haysataa b inay jawaabta saxda tahay in kale ku kalsoonamay waad ku kalsoon tahay inaan b ku eegno kolka ugu dambeyn b baad ku kalsoon tahay inaan ku eegno b baanu eegaynaa sax weeye jawaabtaasi سؤال شوط بيسا كمدة سؤالها مادة تربية إسلامية سؤال شوط بيسا أفراد وحي شيء سؤال أفراد قال الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم هذه الآية في سورة اختيار كوباد المجادلة اختيار كلابات المنافقون اختيار كصدحات القمر اختيار كأفراد الممتحنة وقتي نوكو بالأبمي بسم الله مقعيق وهنا محمد محمود 8B بقولي كنت قبلها هذا السؤال اسكت يا جوابتي دواء اختيار كأفراد سورة الممتحنة اختيار أفراد ودي سورة الممتحنة واتي وقت بدو لها يستا كوكرسون تايني دي تاي جوابتها صحدا ما تاي وان كوغنا ugu dambeyn مادتي اللغة العربية هي إنه بلابنتي إسلام معلم مصطفى هي إنه سودي سؤال شكوبات أكمل سؤالها مادة اللغة العربية سؤال شكوبات وحي شيء ساب كتب الطالب الواجب وحفظ درسه ولعب بالكرة عدد الأفعال في الجملة السابقة هي اختيار كوباد واحد اختيار كلابات 2 اختيار كصدحات 3 اختيار كفراد 5 وقتي نوكو بلابمي
بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي قيامي يوسف بدر كنا سعداء سكول كان وردين خاصان قلاس كإير هذا سؤال جاوبته اسكت وحويان اختيار كالصدحات واختيارك الصدحات أو نقول جوابته دي سي ثلاثة سي بعد كل كرسون تاي وقتنا وضع هيستا واتاي سي بان كويغنا وقدمينتي واد كل كرسون تاي سي دا كويغا واتاي سي بان ويغنا محمد وصح جوابته سي خلاص تفعل waxaan ka codsanayaa ardayda halkaa fadhiya tarabuuka fadhiya iyo ardayda baalasha fadhiya inay anshaxa ay ilaaliyaan iyo asluubka iyo nidaamka ay tartanku u socdo su-aasha labaad waxay sheegaysaa al-ismu almarfuuc alladii tabda'u bihi aljumlatu alismiya tusamaa ikhtiyaarka koobaad khabaran ikhtiyaarka labaad faacilan ikhtiyaarka saddexaad mubtada'an ikhtiyaarka afaraad ismu lfaacil waqtigina wuu ku bilaabmay بسم الله مقعيقة أقبال مولين محمود أحمد كان صعد جلاس كأير بي موني قيت بقولي كنت بسم الله ده سؤال صوتيه حنقان سي ده مبتدأ سي أو مبتدأ ولي وقت بعد هيسته أن هو still you have a time واتكو كرسون تاي إن سي أنا يجنو آديات واتاي سي دينو يجدونا إن جوابته الصح ده تاي إن كله وصح جوابته سي سؤال صدحات كم سؤالها مادة اللغة العربية سؤال صدحات وحينوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من اختيار كوباد أن تدعهم جاهلين اختيار كلباد أن تدعهم علماء اختيار كصدحات أن تدعهم عالة يتكففون الناس اختيار كأفراد وطنبيا أن تدعهم ميسوري الحال وقتنا وكل بلاب مي بسنك يا مقعد كل بلابيسا بسم الله أنا واعي سي عبد الرحمن حسين كان صعد كلاس كيري هتن سؤال شوفت اسكتي وسيدة وسيدة جوابت سؤال شاسي وزيباتري وقت بعد هيستا وضربتا واتاي سيبان كو ايغينا اني صحتاي وصح جوابتا سنه سؤال شوط بيساء كمل سؤالها مادة اللغة العربية سؤال شوط بيساء وحشيقسا نستفيد من جلود الأغنام حاليا اختيار كوباد في صناعة الأقمشة اختيار كلبات في صناعة الأحذية اختيار كصدحات في التصدير إلى الخارج اختيار كوضن في صناعة قرب الماء وقتي نوكو بلاب مي مرلبات بان سؤاشا مرلبات أي سؤاشا أن كعلينيا سؤاشا وضن بيساء مادة اللغة العربية وحشيقسا نستفيد من جلود الأغنام حاليا نستفيد من جلود الأنعام من جلود الأغنام حاليا اختيار كوباد في صناعة الأقمشة اختيار كلبات في صناعة الأحذية اختيار كصدحات في التصدير إلى الخارج اختيار كوضن في صناعة قرب الماء واتاي وقتي ندب بلاب مي بسم الله الرحمن الرحيم مقاعيقو شكري عبد الله قولنا waxaan ka socdaa iskuulada Nuuruddin gaar ahaan galaaska 8B su'aasha jawaabteeda hadaan isku dayo waa bida waa bida waqti baad haysataa inay jawaabtaasi ay tahay ta saxda ah oo aad ku kalsoon tahay waatay b ma ku eegna inay ta saxda tahay بي بنكوينا في صناعة الأحذية هيه وقتي أو هذا كوبان هرير هيجن ما الله هيجن جواب تاسو وقت وقعد عيا بي ذي كوكل صون تايسا سنة يجنا جواب تنوع غلط صح دو سيده
waa tahay intaas ayuu tartankaasi inoogu eg yahay intaanan se ka bixin waxaan kusoo dhaweynayaa maamulaha dugsiga oo kelimaad ina odhanaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle mar koowaad mar labaad maanta waxaa inoo soo googoobay tartankii aynu wadnay bisha ramadaan qaybta sideedaadka waxaanu dardar gelinaynaa xoog u socon doona inta dambena barnaamijyada lagala socon doona haddii ilaahay nagu simo tartanka toddobaadka laakiin maanta guntii iyo gabagabadii aanu soo gaarnay fasalka aid a iyo aid b oo daloodha iyo 150 lahaa ayaa tartankaasi labada galaasba waxaan laba galaas oo aad iyo aad u tayo fiican aqoonna ka muuqatay dadaal badan iyo guulo badan oo horena soo gaadhay runtii tartanka maanta aqoonada badisay ee daloodha oo aid b aid a daloodha oo moonina aad baan u hambaleynayaa qolada kale aid b hablaan xoog iyo xoog baan u hambaleynayaa sidii ballanteenu ahayd qolada guulaysataa oo qoladeena uun qasdigeena iyo muhiimadeena wuxuu ahaa inaynu soo bandhigno aqoonteena iyo tayadeena waxbarasho waynu soo bandhigno guud ahaan geygeen ku noolay Somaliland tiina too muhiimsan waynu ka gaarnay runtii dadku wayna arkeen aqoonteena iyo halkeen marno waxaa muhiima in qolada guulaysta aynu hambalyeeyno dhammaantiin waynu hambalyeeynaa kow iyo laba iyo saddex waynu hambalyeynaa idinkana waynu bogaadinayaa runtii dadaalkaasoo gaadheen oo hablahoo dhan aad ugu sarreyseen waxaan hadalka ka baxayaa waynu sugi doonaa tartanka finalka cidda soo baxda ee aidkaa soo raaca toddobaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay intaas ayaanu daawadayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada Nuruddin Schools oo xalqadan ay ku tartamayeen fasalada 8A iyo 8B daloodho iyo 150ka dib barnaamijka kan la mid ah intaynu ugu kulmi doono waxaad la socotiin anigoo Nuruddin Cali jooga farsamada Maasim iyo Maxamed iyo Saciid iyo waxa Cabdiraxmaan Daacad ayaa inoogu jiray nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh